halkani waa hoteelka Daalo waxaana uu saldhig u noqday tuugta iyo xabaqlayaasha oo habeenkii iyo maalintiiba dadka baaranaya qaar ka mid ah xabaqlayaasha goobtani ku sugan oo Ariel TV la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ku kalifay falkan amniga lidiga ku ah iyadoona ay xusid mudan tahay inay goobtani xabaqlayaasha iyo tuugta xarunta u noqotay ay hareeraha ka xigaan wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale bangiga dhexe gobolka Togdheer waxaana ka mid ah hadaladoodii sidatan waxaan ugu kalifay aan dadka aan magaranaysaa wax ka qaadno xoolahooda ka qaadnaan ku weerarno waxaan ugu kalifay ma haysano wax xalaalay waxaan magaranaysaa cunno kowlada cidna de magaranaysaa waxba nama siiso sida darteed baan ugu kaliftay dadka inaan waxooda ka qaadnaan ku baadno waxyaabo badan aad iyo aad u badan ayaan ugu kalifay maxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku kalifeen aad weerarka ku qaaddo waxa naga mid ah inaan weerarka ku qaadno gaajada iyo xoolaba qaar ka mid ah ganacsatada meheradaha iyo hooyooyinka xaafadani ayaa cabasho ka muujiyay iyagoona baaq dheer u diray barasaabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale hay'adaha nabadgelyada oo ay ugu baaqeen inay wax ka qabtaan waxaan doonaynaa in laga qabto xabaqlayaashu naftii bay nagu dhiban harkii cadaabayna boobayaan guriyay bay nagu soo daadanayaan caruurtii bay naga baabiiyeen duleedka ayagay degan yihiin dawladdu inay si degdeg ah wax nooga qabataa baanu ka doonaynaa xabaqlayaasha naga qabato xabaqlayaashii oo halka khaatiyaan naga dhigay dadka meheradaha haysto oo ay qashqashaad ku sameeyeen iyo tuugnimo waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland xabaqlayaasha jooga dooxa ee meel walba jooga ee ciyaalka xabagta cabaya inay ka qabtaan oo ay ka ilaaliyaan oo waxa weeye ay soo qabtaan ay hay'ado u geeyaan ama iyagu qaabilaan oo meel ay geeyaan xabaqlayaasha geeriskan baan haystaa kowdhi dawladda waxaan u sheegayaa in laga soo qabto tuugta habeen kasta iyo maalin kasta aanu heegan ka unahay oo degan meesha dooxa ka soo dareeraya bangiga agtiisa degan oo meesha cashuuraha degan agtooda halkaas meel ka soo dareerana habeen iyo maalin baan iska eegina oo iska weerina marka dawladda waxaan u sheegaynaa inay wax ka qabtaan waxaanu agnaa bangiga iyo kastanka agtiisa qayr Daalo waxa ka buuxa xabaqlayaal kumanaan gaadhaya xabaqlayaasha dawladda xoog ka qaban weyday askarta xoog ka qaban weyday dawladdu ka soo horjeeda kastankii baa soo eegaya baankii baa soo eegaya moobile hortooda kala yaacayaan cid wax ka qabanaysa ma jirto dawladda sharaf lagu codsanayna hataa xaafadaas in aad iyo aad naga soo gaaro xabaqlayaasha iyo tuugta dariiqada tuwan masaajiga hortiisa way tooyin waxaanu ka hadlaynaa tuugta iyo xabaqlayaasha وين نلاقي قبته geesta kale mar aan isku daynay inaan wax ka weydiino taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaanay noo suurtagelin ugu dambeyntii goobtani Daalo ee xarunta u noqotay xabaqlayaasha iyo sidoo kale tuugta ayaa waxa hareeraha kaga dhagan bangiga dhexe ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyadoona khatar amni darro ku ah goobahani Cabdullaahi Xudayfi Ariel TV Burco